waxaa jira dad maalin kasta hurdada kacay oo ka baqaya dagaal, qaar waxay ka baqaan gaajo ama cudurro, laakiin dadka ku nool Kiribati waxay la nool yihiin cabsi ka duwan dhammaan kuwaas. Waxay ka baqaan in maalin uun dalkoodu badda ku dhex lumo. Marka ugu horreysa aad aragto Kiribati, waxaad moodaysaa meel riya ah, bad buluug aan dhammaad lahayn, xeebo ciid cad leh, carruur faraxsan oo xeebaha ku ciyaaraysa. Wax walba waxay u muuqdaan kuwo degan, laakiin degnaantaas waxaa ka dambeeya sheeko murugo leh. Kiribati waa dal yar oo ka kooban 33 jasiiradood, kuna yaal bartamaha badweynta Basifiga. Jasiiradihiisu aad bay u hooseeyaan, meelaha qaarkood dhulku wuxuu badda uga sarreeyaa wax ka yar 3 mitir. taas waxay ka dhigan tahay in kor yar uu ku yimaado heerka badda uu bedeli karo nolosha kumanaan qof. Laakiin arrintu maaha oo keliya in biyuhu soo bataan. Maalin kastoo badda xoog yeelato, biyaha cusbada waxay galaan ceelashii biyaha laga cabi jiray, beerihi yaryaraa way engegaan, geedihii qumbaha waxay bilaabaan inay dhintaan, qoysas badanna waxay ogaadaan in gurigooda uusan sii ahaan doonin meel ammaan ah. waxaa kasii murugo badan, carruurta ku dhalatay Kiribati waxay mararka qaar maqlaan waalidkood oo ka hadlaya hal su'aal: haddii badda sii kacdo, xaggee ayaan aadi doonaa? Waa su'aal aysan jirin ilmo doonaya inuu maqlo, laakiin waa xaqiiqda ay la nool yihiin. taas waa sababta dowladda Kiribati ay sanad badan ka hor dhul uga iibsatay dalka Fiji. maaha inay rabto inay dhisto dal cusub, mana inay ka tagto dalkooda. waxay ahayd qorshe ay doonayaan inay ku badbaadiyaan mustaqbalka shacabka haddii ay xaalad isbedesho. bal qiyaas si ay daran u tahay inaad ogaato in waddanka aad ku noolta laga yaabo inuusan jirin marka carruurtaada weynaadaan, in gurigii aad ku barbaartay maalin uu noqdo qayb ka mid ah badda. Kiribati maanta maaha oo keliya sheeko dal yar oo ku yaala badweynta Basifiga, waa sheeko dunida oo dhan qusaysa. waxayna xasuusinaysaa in isbeddelka cimilada uusan ahayn waxa beri dhici doona. qaar ka mid ah dadka dunida waxay maanta la nool yihiin saameyntiisa. waxaa laga yaabaa in Kiribati uu noqdo dalkii ugu horreeyay khariirada adduunka ka luma, laakiin su-aasha ka weyna taas ayaa ah, haddii aan wax isbeddelin, dalkii ayaa noqon doona kan xiga.